waxaan kormeer ku soo sameynay maanta iyo shalay intaba baraha laga soo galo ee control ee gobolka Banaadir laga soo galo ee gaadiidka iyo dhammaan lagu hubiyo iyo suuqyada ugu muhiimsan magaalada haddii uu yahay suuqa siinka dheer ee geela lagu gado iyo suuqa ariga degmada Daynile iyo hadda oo aan taaganahay suuqa bakaaraha ee degmada Holodag waxaan u kurgaleynay oo aan fiirinaynay ama aan indheynaynay shaqadan oo noola magacaabay oo uu noo magacaabay ama oo ii magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Axmed Amiir iyo dawladda hoose dakhligeeda oo xaalado iyo maalmihii dambe la dardareemayay in wadanka dagaalo maadaama uu ku jiro oo qof walba cudurdaar ay ka dhigatay in dhaqaalihii hoos u dhac iyo waxaas ay ku yimaadeen annagoo taas ka duulayno ayaa waxaan soo kormeernay dhammaan suuqyadaas iyaga ah waxaana soo bixinay awaamiir laga dhaxli doona dhibaatooyin haddii lacagaha dawladda hoose ee soo gala ama laga qabta suuqyada iyo dhammaan meelahaas iyaga ah oo dhan in dhibaato dadka ay ka wajihi doonaan saraakiisha ka shaqeeya goobahaas dhammaan waxaan aaminsannahay inay yihiin saraakiil soo dhabar adeegay ka soo shaqeeyey ku soo shaqeeyey daruufo adag laakiin waa u sheegnay waxyaabaha ka jira iyo sida ay waxay yihiin beledkan waa magaalada Muqdisho waxaana suuragal ahayn qarnigan hadda lagu jiro in la musuqmaasuqo lacag dawladda hoose ama lacag dawlad soo gali lahayd waxaas wax loo dul qaadan kara maahan hadda saaka galabta waxaan joognaa suuqa bakaaraha dhammaan waxaa u soo dignay dukaamada ku yaala hareeraha iyaga oo aan u sheegnay annagoo ka kontaroolayna shatiyadooda una sheegnay inay qaataan ama ay bixiyaan lacagaha loogu talagalay ee canshuuraha dawladda hoose sidaas si lamid ah inay u hoggaansamaan saraakiisha ka shaqeynaysa oo ugu horeeyo kaabmarqaatiga iyo tiimka la shaqeynayaba iyo ciidanka la shaqeynayo dadkaas ayaa lagala xisaabtami doonaa oo dawladdan ay kala xisaabtami doontaa hadduu alla idmaayo waxaan u digaynaa ama aan u sheegaynaa dhammaan howlaha anaga noola diray waa dabagal iyo kormeer waxa aan dabagalaynana waxa ugu muhiimsan waxa waaye in waxaani dadka laga qaaday shacabka iyo dawladda sida saxda inay u gaarto oo wada sax ah ay isu marto la abuuro waaye jawigaas in la abuuro waaye jawigaasaan ku taagannahay qof alaala qofkii lagu arkay qalad oo ama gaari aanan boono wadanin ama gaari ay ahayd in canshuur laga qaado ee canshuurtii waa bixiyey dhahaayo aan la soo gudbinin iyo dhammaan dukaamada sidaas la mid ah